wuxuu ka mid ahaa jameecada masjidkan waa xilli ka mid ah xilliyadii marxuum cumar xasan macallin oo u xaadiri jiray salaada balse caawa alle uma qadarin inuu halkan waajibka alle ku oogo kadib markii askari ka tirsan ciidanka dowladda uu 2,000 oo shilinka Soomaaliga ah uu ugu dilay miis yar oo uu ku ganacsanayay gudaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. dekada xamaali ka ah xamaaliga dekada itaal oo ku xamaalsado waay markaas gaarigan yar loo aruuriyo waliba dhalinyaro u aruursay wuxuu ahaa aabada ah oo nolosha caruurtiisa oo isaga ku tiirsanaa ka dabari jiray alaab aan badnayn oo miiska lagu duldulay uu ku iibin jiray. marxuumka askari la sheegay inuu ilaalo u ahaa gudoomiyaha degmada Shingaari ee gobolka Banaadir ayaa toogtay kadib markii uu ka codsaday inuu ka bedelo 2,000 oo shilinka Soomaaliga ah oo jeexneed kana mid ahayd lacag uu wax uga iibsaday muran kadibna uu sidaas falku ku dhacay. askari booliis askari qaran ee bartaanka dilmiiskan waxa uu dilay sigaar nin boqollow sigaar u dilay nabarkiisi bareerkaas aan xabad ugu dhuftay lacag jeehna keen lacagtaan maraw ee dhaaf warqaado maqaada nabarkaas shacbooliyaay wanankii odayii wahiya la dhig sigaarkii la dhigi waa san awoodis waa la qabsaday waa u dhigi waa bahi qoriya doontay waa soo qaatay qoriya nabarkii soo qaatay abadiya ku bilaa hal kora ugu riday hal afka ugu dhuftay halkaana uu baahday wuxuu dalbaday 8 xabo sigaara 8 xabo sigaar wuxuu yirniyo 6,000 waa ka iibi karaa 2,000 waa jeexan tahay iga wareeji markaas uu yiri lacagta maan sameeyay aniga wuxuu ka dafay baaki sigaar oo bensol ah iyo xoogaa meesha u saarneed xoogaa markuu ku dafay waa la qabsaday waa iska kala tuuray markii la kala tuuray waa orday ninkan qori uu doontay wuu imaaday xabadu laba xabado dhulka ugu dhuftay iyo xabado oo afka u galiyay intaas wax u dhaceen nin saaxiibkayga miskiin oo ahaa oo iska xamaalsada oo xanuunsan oo caruur badan oo ka tagay 3 caruur oo dhalay oo iska miskiin oo gacan yara aad u dhiban intiisa gabadhan hooyadeeda dhashay aad telefoon noogu soo dirtay caadadkeeda jirto. waxaan joognaa guriga Allah u naxariistay marxuum Cumar Xasan Macallin oo askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya galabta magaalada Muqdisho oo ugu dilay 2,000 oo shilinka Soomaaliga ah. gurigan saaka farxad ayaa ka jirtay balse caawa waxa ka jirta dareen ka duwan kii saaka dadka halkan degan ay ku waabariisteen. dilkiisa wuxuu u dhacay anakoo maxamed oo joogno gurigii asagana naga tagay 5 saac oo naga tagay oo ilmihii dugsiga geeyay oo yiri aniga shaqadeen aada oo naga tagay dad baa telefoon noo soo diray waxay dhaheen marxuum Cumar dariiqo yaala xabad baa lagu dhuftay xabada maxaa sabab loogu dhuftay waxa loogu dhuftay sabab wixii soo asagoo ganacsanaayo oo yiri waxaan iga gado lacagtan waa jeexjeexantaa aniga kaama gadan kari hadoo yiri wuxuu ka qaatay baaka sakreedkii la qabsaday waa isqabsadeen markay isqabsadeen sakreedkii markuu ka qaatay ninkan gurigii ku noqday qorigii soo qaatay madaxii ishu dhinaca uu fujiyay maskaxdiisa dhulkay timid nafo lama mala dhicinba waa geeriyooday waxa waa 6 caruura loo dhalay 3 waa ka geeriyootay 3 hadda waa u joogan ilaahay u joogan anigana gabadha walaasheedan ahay ilmaha habar yaraan u ah madiina la geeyay wiil walaalkiisa ah qaatay madiina oo la geeyay haddana waa la wadaa waxa loo wadaa shanbood in lagu duugo ceel jaale in lagu duugo oo dadkiisa ay ku duugtaan saasaan ku ognahay naagtii ilmihiina waa jiraan hadda. sidoo kale marxuumka waxa caawa aad u tabaya marka laga soo tago ehelkiisa saaxiibadiis oo halkan uu kula caweyn jiray caruurtiisa oo ka kooban 3 iyo hooyadood bari ayay safar u ahaayeen deegaanka ceel jaalle ee gobolka Shabeellaha Hoose balse safarkooda waxa hadda ku wehelinaya aabahood oo meyd ah maadaama deegaankaas oo uu ku dhashay kana soo jeedo lagu aasayo sida ehelku ay noo sheegeen. waxaan ku dhex jiraa hadda oo halkan uu yahay qolkii saakay si nabad ah uu uga shaqo tagay Allah u naxariistay marxuum Cumar Xasan Macallin waxaana markaasi caruurtiisa iyo sidoo kale xaaskii u dhaxday Allah u naxariistay marxuumka caawa ay aadeen isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho halkaas oo hadda markaasi meedkiisa la geeyay naloona sheegay in bari subax looga qaadi doono gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka ceel jaalle oo uu ka soo jeedo laguna aasi doono. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa xaqiijiyay in ciidamada amnigu ay gacanta ku dhigeen gacan ku dhiglihii falka dilkaahi geystay.
maxamed cabdi xasan iidle raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada muqdisho